مولانا سمعنا سمعنا سكالنا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد والله يلميش وحرمنا أن كشجنه مسابقاتي سديدات إمام الشاطبية دعدي 2022 abaalmarintii ay heleen saddexdii arday ugu sareeyay ee ku tartamayay soddonka jis ee quraanka ah. waxaa maanta halkan jooga gabadhii ku guuleysatay soddonka jis ee quraanka ah ee la yiraahdo Fatuun Cabdiqaadir Waaku oo baawur heshay iyo macalinkeedii macallin Cabdinaasir. waxaa kaloo isna ku guuleystay soddonka jis ee qiraa'aadka ah Axmed Bashiir oo macallin Siciid Ducaale macallin u yahay Nashville Tennessee ka yimi. waxaa kaloo ku guuleystay soddonka jis ee quraanka oo baawur helay wiilasha Adiib Baari oo tax ka yimi. intaas aan markaa maanta iclaamino. haddana waxaan jecelnahay macallin Cabdinaasir inaan ku wareejiyo mikrofon. marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan u mahad celinayaa maantana waafajiyay inaan nimaano halkan oo aan ku weyneynayno quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. sida Sheekh Cabdixakiin sheegay waxa maanta baawur la guddoonsiinayaa Fatuun Cabdiqaadir Waaku oo ku guuleysatay qaybta gabdhaha soddonka jus. Fatuun waa gabar ku dhalatay Mareykanka ayaday ku kortay ayada wax ku baratay muddo dhowr iyo 10 sano ilaa 13 sano ila joogtay. waxay tartanka soo bilowday 2016 musaabaqada Imaam Shaatibi 5 jus bay kaga tartantay wayna ku guuleysatay number 1 bay ka gashay. waxa kaloo ay musaabaqaad badan bay ka qayb gashay sida Mass Chicago Canada musaabaqada Toronto ka qayb gashay oo muxuu ahay kaalinta labaad ka soo gashay. waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo waalidkeedii hooyadeed Deeqo iyo aabaheed Cabdiqaadir oo ayagu qayb ka ahaa muxuu ahaa safarkan iyo gabadha inay meesha soo gaarto. oo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalaha musaabaqada Imaam Shaatibi ayaguna ka shaqeeya oo volunteerska ay hari habeen soo jeeda oo intaas oo sano ka soo shaqeynayay ayagana waan u mahad celinaynaa. waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadka ayagu muxuu ahaa lacagta baxshay oo mutabarriciinta iyo ayagu maartay musaabaqada lacagta ku baxshay ayagana aad baan ugu mahad celinaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay miisaanka xasanaadkan kugu daro. walaalaha ayagu baawurka baxshay oo maanta walaalkaahin iyo Cabdinaasir Suufi iyo walaalaha kalena ayagana aad baan ugu mahad celinaynaa. walaalayaal saad aragtaanba musaabaqaadka in la taageero oo la dacmiyo oo waxa weeye waliba kuwa quraanka waxay keenaysaa in ciyaalkeena ay maaragtay diinta ku dhaganaadaan. musaabaqaad far badan baa adduunka ka jira waa aragteen oo wax kale lagu tartamayo banooni baa lagu tartamaa waxyaalo kale. laakiin in ciyaalkii quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu tartansiiyo ay ku mashquulaan xifdintiisi waa arrin aad u weyn weeye. ciyaalkana insha Allah rajaynayna inay maaragtay qurbaha ku nool inay badbaadin doonto. marka intaasaan oran lahaa. haddana insha Allah waxaan u dhiibayaa Fatuun Cabdiqaadir Waaku insha Allah say dhowr kalimo u dhaxdo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Fatuun Waaku and I've participated in the whole Quran competition in the Imam Shatibi North America Quran competition, and alhamdulillah I've secured the first position by the will of Allah. Firstly, I want to thank Allah for blessing me with the Quran and blessing me with this position. Secondly, I want to thank my teacher, Ma'alin Abdinaasir, Mahmoud Farah, for teaching me for many years and put a lot of time and dedication into me. Next, I want to thank my parents, my mom and dad, for sacrificing everything they could for me and always been by my side. I also want to thank my classmates and my family members who had undying support for me and encouraged me. And lastly, I want to thank the Imam Shatibi Quran competition for giving me this opportunity to compete and in this prestigious competition. I ask Allah to reward them all and to bless them endlessly and grant them the highest level of Jannah. Ameen. walaalayaal dhankii idaarada kulli iyo Sheekh Cabdixakiin baa inoo hadlay insha Allah ta'ala. erayga u dambeeyo oo aan rabo inaan ku soo gunaanudo waxa weeyaan munaasabadan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iskale awalan wa aakhiran tartankii sideedaad si wanaagsan inoogu soo gabagabeeyay.
halkan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu baryaynaa dhammaan walaalihii garab istaagay musaabaqada imaam shaatibi ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah u saaro dhammaan walaalaha kalena waxaan ku boorinaynaa insha allahu tacaala mashruucan qur-aanka inay taageeraan biidni illaahi tacaala الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي ما هذا إسكاله آدي مباركتي وحان ugu faraxsanahay caruurta guuleysatay especially gabadha yare ma sha Allah Ilaahay ha u barakeeyo gaadhigeeda iyo wixii quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka waafajiyay waxa kale toon u duceynayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay walaalaha suuqleyda gabdhaha maarta reer Carmel ee ka qayb qaatay Ilaahay maalkiina ha idin barakeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala business koodan Allah inoo wada barakeeyo caruurtana Allah inoo barakeeyo caruurtana Ilaahay subhanahu wa ta'ala sanad walba Ilaahay waxaan uga rajeynayaa inta ay in ka sii badan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyo aamin sallallahu alayhi wa sallam